wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa maanta kormeer ku maray cisbitaalka guud ee Burco oo waayidii u dambeeyay laga cabanayay adeegyada caafimaad ee uu bulshada siiyo. wasiirka ayaa mid socod ugu maray waararka kala duwan ee cisbitaalka guud ee Burco isagoo warbixin ka dhageystay dhakhaatiirta waararkaasi ka hawlgasha. kormeerkaasi kadibna wasiirku waxa uu shir albaabada u xidhan yihiin la galay dhakhaatiirta cisbitaalka hawlgasha iyadoo la sheegay laga wada hadlayay dardargelinta hawlaha caafimaadka iyadoo wasiir Xagle Toosiye uu maanta cisbitaalka guud ee Burco u magacaabay agaasime cusub oo ah Dr. Naasir Maxamed Nuur. wasiirka oo warbaahinta kula hadlayay gudaha cisbitaalka waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ballaaran oo kor loogu qaadayo adeegyada caafimaad ee cisbitaalku bixiyo. wasiirka oo ugu horeyn ka hadlaya ujeedada socdaalkiisa waxa uu yiri safarkayga halka ku yimid safar shaqo kormeer cisbitaalka Burco ujeedadiisuna ay tahay inaan dardar gelino adeegyada caafimaad ee cisbitaalku bixiyo. cisbitaalka Burco waa cisbitaal weyn oo meelo badan laga yimaado waana mudnaan priority number 1 ayuu yahay wasaaradda in adeegyadiisa caafimaad kor loo qaado iyo in dhismihiisaba la ballaariyo oo la kordhiyo. marka safarkaygu waa wuxuu la xiriiraa intaa weyn. anagu xukuumad ahaan waan dadaalay in cisbitaalka la badbaadiyo lacag badanna waan ku bixinay waqtiyo kala gedisan. ilaahay ma hadiyana wuu kaba yahay maanta shaqaduna waa ka socotaa adeegyadii ka socdaan 22 dhakhtar baa jooga oo reer Soomaaliland iyo ajnabi ah. waxaan u qorsheysay inaan kordhino hadda magaranaysa adeegyada caafimaad. sidoo kale wasiir Xagle Toosiye waxa uu ka hadlay shaqaale la sheegay inaanay mushaharkii qaadan muddo ku siman 3 bilood. waxaanu yiri shaqaaluhu waa laba qaybood. qayb MSF u shaqeyn jiray taa aan idin cadeeyo iyo qayb xukuumadda dawladda ka tirsanaa oo payrollka dawladda ku jiray. wixii payrollka dawladda ku jiray oo ka badan baan malaynayaa 160 mushaharkooda way qaataan si joogto ah waa shaqaale dawladeed. wixii MSF ka qaadan jiray MSF qoratay weeye waxa cabanaya awood aan ku kufrgareynaa ma leeyahay laakiin payrollka ku jira payrollka 180 shaqaale ugu jira cisbitaalka oo hela mushaharkooda joogto ah. gabagabadiina wasiirku wuxuu sidoo kale sheegay inay muhiimadda koowaad siin doonaan cisbitaalka guud ee Burco. cisbitaalkana priority number 1 buu leeyahay hadda xukuumad ahaanna way nagu go'aansan wax ka qabanay. marka awoodda dhaqaale iska yar adigoo doonaya wax badan inaad qabato ayaa marmar aanay ku suurtagelin balse nin Itaaliya oo boqol geela keligii waraabinaya ayaa qolo ku soo baxay. markaasaa la yidhi daytariirgiisi talada wargeela maadaa waraabinaya كلية مسؤول ها كلية ورابي مسؤول ولا كان عبد مايو كوسي مايو عبية لو سراقية قال له عبية سراقية wax badan baynu qabsanaynaa. tan iyo intii cisbitaalka guud ee Burco ay ka tagtay hay'adii gacanta ku haysay ee MSF waxa hoos u dhacay adeegyadii caafimaad ee uu bixin jiray iyadoo inta badan dadweynaha reer Burco cabasho ay ka muujiyaan adeegyada caafimaad ee cisbitaalku hadda bixiyo. waa Bashiir Ibraahim Qayir Bulsha TV Burco.